الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان صاحبة خالي كحر هرقل تيفي مركل واحد إذن لي هاي هبي وناكسن قارك قلب وطاينا قلب وناكسن أي إذن لي هاي يعني كتجينا مالو وناكسن وإذن رعنايا ما أنتي وحن برامج كمرتي وقع نقدوميها قولها قبلها دكاترة الصوماليات oo iyagu ka aasaasan magaalada Muqdisho waxaynu ka wada hadli doonaa hadii ilaahay ama aynu ka wareysan doonaa wax qabadkooda iyo waliba sababihii loo aasaasay golaha faadimo marka ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa Hargal TV marka xigtana bal waxaad inooga warantaa aasaaska golaha ee gabdhaha ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo waliba sababaha loo aasaasay aad ma santahay oo ku dhawahay TV-ga Hargal TV wadinkaga madcinayaa qaab wanaagsan barnaamijkii wacsunteen next marka soo laabto su'aasheedii kale asaasaha golaha gabdhaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxa ka dambeeyay waxyaabo far badan in la aasaaso ugu horeyso in la helo gabdho isu duuban oo mideysan waxa jira gabdho isu fakalti ah hadana isu department ah laakiin si aan nasiib u yeelanin inay sameystaan in ay midoobaan sidoo ujeedka ugu weyn oo asaasay waxay tahay inay gabdhaha midoobaan nakasimada xigta oo asaasay waxay tahay inay helaan dhiirigelin waxbarasho oo aan lahayn dalkeena gabdho la dhiirigeliyo ama waxyaabo lagu dhiirigeliyo badanka aqoonta midda saddexaad oo kale waxay tahay inaan caawino gabar waliba oo waxbarasho doonaysa haddana san awoodin inay lacagta waxbarashada jaamacadda iska bixiso haddii aan anaga full scholarship aan u helno aan barter scholarship labadaba waxaan garab u taaganahay inaan ku siino inaan ka buuxino dhankii waxbarashada dhan waliba oo quseeyay gabdhaha ayaa loo aasaasay golaha gabdhaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed faado marka laga soo tago aasaaska golaha waxa kale rabaa inaan ku weydiiyo marka la yiraahdo caafimaad gabdhiga aad ay u badan yihiin caafimaadka si gaarna ugu badan yihiin inta badan bulshada waxay yiraahdaan gabdhiga oo dhan caafimaadka ay u bateen adinku gabdhihiina imisa ay ka kooban yihiin calashaan meeqa gabdhood golaha ku mideysan shaqooyinka ugu horeeyay aad qabateena maxay ahaayeen okay aad u maasantahay golaha gabdhaha marka fiirisa siday Soomaalidu sheegaan oo badanaaba 99% waxay dhahaan waxa u badan caafimaadka gabdhaha sidaas ay tahay hadana ma helaan daryeelka u qaaska ah ee gabdhaha ma helaan ujeedka ay ku barteen gabdhaha mana helaan qaabka rasmiga ah ay ku barteen taasi oo cadeyn karta shaqo la'aanta gabdhaha kamid ah inaysan helin shaqadii ku filneed ee gabdho u baahan tahay iyadoo waxa arkaysa bachelor medicine wadata oo laga rabo inay dhakhtar dhan noqoto ay meel fariisato in uu leeyahay as nursing ahaan ha u shaqeysa gabadhani good marka fiirisa caqabadaasi oo kale way jiraan marka soo laabto dhanka kale waxa jiro shaqooyin oo anaga hadda aan sameynay oo ugu horeyso processka naftirkiisa golaha gabdhaha in la dejiyo wax walba markaas sameyso process u baahan tahay hadda example waxa u degsan process u gaar ah golaha gabdhaha oo marka fiiriso aan ku shaqeynin processyada kale organizationada kale wuxuu leeyahay madax sare oo ka kooban 12 qofood 12 kaasi waxay kala yihiin gudoomiye ku xigeen madax maaliyadda xogeeye madax shaqaalaha dabagalka maaliyadda iyo sidoo kale la taliyaha gudoomiyaha iyo kaamilmaanada golaha gabdhaha oo qaybta sare ah waana kasta waxa jira qaybta xigta oo ah xubnaha golaha xubnaha marka dhaheena waxa kamid ah gabdhaha ka soo qalin jabiyay jaamacadda inay ugu horeeyo specific ugu horeeyo inay ayaga helaan ay qaataan ayaa taasi u sameynay nakasti waxa kale oo jira ay noqonayso gabdhaha dhigta jaamacadaha waxay leeyihiin gudoomiye jaamacad walba sidaan u soo magacawnay gabar jaamacad umada Banaadir Muqdisho jaamacado badan oo dalkeena ku yaal ilaa ay hadda ka diiwaan gashan 12 jaamacadood ayaa golaha ka diiwaan gashan intaad wuxuu leeyahay 12 qof oo gudoomiye ka ah jaamacadaasi taasi oo aan ugu talagalnay kala fududeynta hawlaha iyo isku xirka gabdhaha faadimo maxay tahay farqiga u dhaxeeyo adigoo gudoomiyaha golaha ah iyo waliba gabdhaha kale oo jaamacadaha ka yimaadeen ee gudoomiyaasha okay xaqiiq farqi weyn u dhaxeeyo meel walba waxay leedahay process hadda kaaga sheegay waxaa jira gudoomiyaha guud ee golaha gabdhaha dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo aniga ah nakasti ani marka gudoomiye ka ah golaha
isku keeni kari in shaqadii golaha aan qabto oo waxyaabihii golaha ay u baahan yihiin ha ahaato hay-adaha iyo waxyaabaha lagu xirayo golaha inaan sameeyo iyo ina guud ahaan aan ka warqabo jaamacadaha ma noqon karto. sidaas awgeeda waxaa sameeyey jaamacad walbo inaan u sameeyo gabar guddoomiye ah oo jaamacadaasi dhan meel loo raacday ay leedahay. laakiin haddii aan sameeyo jaamacadda for example hal jaamacad waxaan ka hayaa 200 oo gabdhood 200 ma laha guddoomiye ay u raacdaan iyo ka amar qaadanayaan. aniga ma awoodi 200 oo gabdhood markaa wax sheegaya inaan u wada sheego ama inaan u gudbiyo. marka badanaa dadka aad u wareeray inkastoo aan ogahay oo aan laga soo dhigay post ku saabsan arrintaasi oo page-ka la soo geliyay oo haddana ay noqon karto guddoomiye jaamacada dada fahmayo aad iyo aad wanaagsan dadka akademiyada xaqiiqo way wada fahmayaan. laakiin marka kugu soo laabanayso golahu guddoomiye badnaa markii qofka kugu soo celinayo xaqiiq waxaa dareemi karta inuu qofkaasi fahansanaynin qiimaha uu leeyahay. laakiin guddoomiyaha guud marka uu jiro waxaa jira guddoomiyayaal kale oo hoos yimaada oo jaamacadaha guddoomiye ka ah oo madax ka ah kuwaas loogu talagalay jaamacadaas oo kaliya xogtooda inay hayaan inay ka warqabaan jaamacadda. haddii kulan la imaanayo ayaga ayaa imaanaya jaamacadda ayay sambal u yihiin guddoomiyena way u yihiin. haddii wax loo sheegayna ayagaa dib u gudbinayo. marka waa sidaas mid ugu badan ee dadka ka cawdaan ay dhahaan guddoomiyo badnaa iyo waxyaabahaasi marka